السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale oo cusub. Saaxiibayaal, qisadeena caawa waxay ka dhacday dalka Jazaa'ir, waxayna dhacday sanadka markuu ahaa 2013. Jazaa'ir waxaa jirtay mushkilad xilliga 2013 waxaa jirtay mushkilad haysatay oo mushkiladda waxay ahayd xilliga waxaa la afduubanayay caruurta. adiga ma ahayn dil iyo waxyaabaas, laakiin waxaa la afduubanayay caruurta. adi maalin walba waxaa la waanayay cunug ilmo yaryar. adi maalin walba waxaa la waanayay cunug, maalinta kale mid kale, adi maalinba midaa la waanayay. arrintii waxay noqotay arrin cabsi badan. dadkii xaafadda aadi waa cabsadeen, heer ay ehelada gaareen in ay ciyaalkooda iskuul u diri waayeen, in ay banaanka u dirsan waayeen, oo qof walba cunugiisa guriga ku ceshto. sababtoo ah maalin walba waxaa la waanayay cunug yar oo waa la afduubanayay. xitaa afduub kaliya ma ahayn ilmaha in la afduubto oo la kufsado haddana la dilayay. 2 maalin 3 maalin kadib waxaa arkay meydkiisa oo la soo dhigay. arrinta waxay noqotay arrin aad iyo aad u argagax u ah. dadka waxay gaareen heer xitaa ay sabri waayeen oo markaan waxooda ay banaanka la soo baxaan. ugu dambeyn waxaa dhacday qisadaas ayaana wax walba soo afjari doonto. qisadaas ayaa keentay in dadka in ay kacaan, in mudaharaad ay sameeyaan, in ay booliska ku xanaaqaan. markii qisadaas waxay ahayd, waxaa jiray 2 wiil oo lagu magacaabo Ibraahim iyo Haaruun. Ibraahim iyo Haaruun waxay ahaayeen 2 wiil oo walaalo ah. da'dooda waxay ahayd 8 iyo 10, midna 8 jiray, midna 10 sano. marka maalin way baxeen oo waxay aadeen guriga ayeedood. xilliga Jazaa'ir waxaa jirtay ciyaar aad u kulul oo dalkooda dhexdooda ka jirtay. marka dhalinyaradii iyo dadkii waaweynaa dhammaantood waxay xiiseynayeen ciyaarta, waayo waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u kulul, qof walba wuu xiiseynayay. marka dadkii dhan xaafadii iyo magaalka waa laga baxay oo waxaa la aaday in ciyaarta la soo daawado. marka xaafadda waxaa ku haray ilmihii yaraa bis, ciyaalkii yaraa oo guriga hortiisa banoon isaga ciyaarayay, iyo duqooshinkii waxyaabahaas ayaa lagu dhaafay xaafadda. kadib markay ciyaarta soo dhammaatay, Ibraahim iyo Haaruun aabahooda wuxuu aaday guriga ayeeyada. macnaha wuxuu aaday siduu u soo wado Ibraahim iyo Haaruun oo uu gurigooda u keeno. markuu guriga tagay wuu yaabay, wuxuu ayeeyada ku dhahay, aaway Ibraahim iyo Haaruun. waxay dhahday, Ibraahim iyo Haaruun ma arkin, aan miyay imaanin. wuxuu dhahay, sidee? waxay dhahday, haa, Ibraahim iyo Haaruun miyay imaanin, oo markaa baxday kadib ma arkin aniga ciddii imaatay ma lahan. kadib aabihii xoogaa yar waxaa gashay cabsi. wuu soo baxay, wuxuu bilaabay in uu ciyaalkii raadiyo, xaafadiyuu ka raadiyey. kadib wuxuu kasii raadiyey wadada. marka wuxuu arkay ilmo wadada ku ciyaarayo. wuxuu weydiiyey Ibraahim iyo Haaruun, wuxuu dhahay, ma aragteen Ibraahim iyo Haaruun? waxay dhaheen, haa, labadoodaba anaga ayay nala ciyaarayeen oo agteena ayay joogeen. kadib uu dhahay, laakiin waxay dhaheen intaan ciyaaraynay waxaa agteena imaaday gaari xoogaa weyn oo dheer, waxaana saarnaa nin xoog leh oo dheeroo da'diisa lagu qiyaaso 10 jir meelahaas ayaa imaaday. kadib wuxuu dhahay, oday, hay ii sheega see ku raaceen Ibraahim iyo Haaruun gaarigaas. waxay dhaheen, Ibraahim martsoo anaga noogu dhex jiray, wuu naga baxay oo wuu naga dhex baxay. wuxuu gacanta ka qabtay walaalkiisa Haaruun, labadoodan wuxuu dhahay waxay raaceen gaariga. kadib aabihii wuu yaabay oo wuxuu la yaabay, wuxuu ogaa ilmihiisa oo aan raacaynin qof cusub haddii arkaan ma raaci jirin, gaarina mala koraynin, si caadi uma raaci jirin. iyo qof aysan garanayn iyo qof cusub haddii arkaan ma raaci jirin, may waxaas ma ka barnayn waalidkooda. laakiin markaan hooyadoodii aabahood waxay la yaabeen sida uu ninkan ugu dhaadhiciyay ilmahan in ay raacaan oo uu gaarigan saaro ay baxaan.
midda ayaa haddana waxay ku noqotay layaab kale oo waxay la yaabeen si camal ilmahan siday u raaceen. adiga ugu dambeyn Ibraahim iyo Haaruun waa la waayay. sheekada markaan waxay noqotay farakabax. waalidiintoodana waxay bilaabeen inay ooyaan, in ay murugoodaan. sababtan waxay tahay waxay ogyihiin ilmo hore in la waayay, oo markii la waayay kadib in la kufsaday, la dilay, meydkoodana banaanka lagu soo tuuray. marka iyagana waxay dhaheen bis waay ilmihiin sidaan oo kale u dambeyso, oo wixii caruurta hore ku dhacday iyo ayaa idinkana caruurtiina ku dhici doonto. marka sida ay ku fikireen waxaa la bilaabay in la raadiyo. arintii waxaa laga maarmaan noqotay in loo sheego booliskii. booliskii u tageen, waxay u sheegeen inay ilmihii waasan yihiin oo ay karwaan caawin inay ilmihii la raadiyaan. arinteedan waxay usii sheegeen saxaafadda, oo saxaafadii ayaa loo gudbiyey. Haaruun iyo Ibraahim arintooda way faaftay. xitaa ehelka oo ilmahan waxay fariin u direen dadka afduubtay, oo waxay dhaheen ilmaheen hanaga dilina, waxba ha gaarsiinina, oo nolosha ku daaya. waxay dhaheen xitaa haddaa nolosha ku daysaan waxaa balana in aan idin qabsanaynin dacwo iyo waxaas idin haysano. bis waxay dhaheen ilmaheenana nolosha ku daaya oo noo dhaafa. adiga waxyaabahaasay ka dalbadeen iyaga umarsiinaya. marka saxaafadii wixii adiga fariintii waa laga qaaday, oo sidaas ayaa loo gudbiyay dadka wax afduubtay. laakiin wax soo naas cad ma lahan, oo ilmihii ilaa hadda far laguma heeyo, waa la weysan yahay. waxaa ka soo wareegatay maalmo badan, ma lahan. booliskii way waayeen. kadib dadkii xaafad deganaa iyo dadkii xaafadaha kala dariskooda deganaa iyagana way adkeysan waayeen. waxay u kaceen inay ilmihii raadiyaan. adiga meel walba waa laga raadiyey, waa la waayay. markii la waayay kadib dadkii way si cabsadeen, oo waxay ka cabsadeen arintan dhacday, afduubkan, barnaamijkan oo soo batay. ilmahooda waxbarashada way ka reebteen, wax socdo ilmo ma lahan. arintii waa isku akirantay. shacabkii marka dambe way xanaaqeen, oo waxay ku kaceen booliska, oo waxay dhaheen maxay tahay booliskan soo qabala dadkan wax afduubanayo, ilmahan maalin walba la afduubanayo, la dilaayo meydkan. marka boolisku waxay ku fashilmeen in ay soo qabtaan waxyaabahan ama dadkan wax afduuban inay soo qabtaan. marka shacabkii way kaceen, waxay tageen saldhiggii booliska, way burburiyeen. meesha waxay ku sameeyeen buuq, mudaaharaad badanaa la sameeyey. adiga wixii la isjiijiido oo arintii ay socoto. kadib maalin 2 ilaa 4 maalin kadib waxaa la helay 2 meyd oo caruur ah oo ku jira boorso. marka meydka waxaa lagu soo tuuray mid ka mid dhismooyinka dhismahayaashan qadiimiga ayaa lagu soo tuuray. dhismahaasna wuxuu u dhawaa guriga ayeeyada Ibraahim iyo Haaruun. marka meydkii la soo tuuray, shacabkii way wada baxeen, meeshii la wada tagay. waxaa qof kasta oo u tagay inuu arko meydkan meeshii la keenay, oo labada ilmo ay ku jiraan, oo ayagana xitaa qaabkooda lasoo bedelay, lasoo dilay, lasoo kufsaday. sida aad waxa u maleysaa mataqaanaa mudaaharaad in uu jiro. meeshii waxaa ka dhaceysay qaylo, buuq, dad iska ooynayo. oo ilmahaasna waxay noqdeen labadii ilmo Haaruun iyo Ibraahim. kadib marka waxaa la ogaaday dadkan wax afduubanayo in ay ilmahan ku dilaan ceeji, inay ceejiyaan. laakiin intaysan ceejin ka hor horta ilmahan inay afduubtaan, in ay kufsadaan, kadib inay ceejiyaan. markay ceejiyaan kadib in meydkooda ay jarjaraan, boorsay ku soo ridaan, sidaanay usoo tuuraan. marka ceejinta in lagu dilan waxaa cadeysay baaritaanka. markii meydkii wixii baaritaan lagu sameeyey ayaa waxaa la ogaaday in dadkan ilmaha ceeji ku diraan. waa sababta keentay marka in shacabka ay kacaan, booliskii lagu kaco, oo arintii dhan isqabsato. kadib muddo kadib waxaa la qabtay 2 wiil. mid wuxuu jiray 21 sano, midna wuxuu jiray 38 sano. labadaas marka la qabtay,
marka labadaas arrintooda waxaa laga ogaaday waxaa jiray shaqaalo ka shaqeynayay garaash. marka shaqaalahan waxay dhaheen maalin waxaan aragnay niman kasoo degaya gaari oo boorso ku wada boorsay wax ku wadeen. waxay dhaheen waxay boorsada ku tuureen meel u dhow garaashka, kadibna way baxeen. marka shaqaalahan waxay dhaheen waa baxnay oo waxaan fiirinay boorsadii. waxayba dhaheen waxaan ka aragnay meydkooda oo lasoo jarjaray, qaabkooda lasoo bedelay. macnaha dadkan waxay diidanayeen ilmaha wejigooda in la fahmo. adiga wejiga kasoo bedelayeen, isagoo goonayeen admeedii la jarjara asigana wejigiisa si kale laga dhigo, ma la fahmaya qofkuu yahay. marka meeshaas ayaa cadeynta laga raacay oo ay shaqaalahan sheegeen, oo waxaa la soo qabtay labadan wiil. kadib markii baaritaan la sameeyey oo laba wareystay, labadan wiil afkooda ayaa waxaa laga ogaaday in ay iyaga afduubteen caruurtan, in ay waxyaabahan kiiskan dhacay inay iyaga geysteen. oo waxay sheegeen ilmahan inay afduubtaan, kadib ay kufsadaan, markay kufsadaan kadibna in ay dilaan oo ay gogooyaan meydkooda qaabkiisa dhan si kale ay ka dhigaan, boorso ay kusoo ridaan, kadibna xaafadii ay kusoo tuuraan. weliba asxaab malaan fiiriyaa, meydka waxay kusoo tuurayeen xaafadda uu cunug markaas deganaa, oo ilmaha meesha xaafadan camal haday ka dhinteen oo ama laga afduubtay, xaafadii meyd kusoo tuurayeen, boorso ayay kusoo riday waysa tuurayeen. adi saaxiibadaada markay wax walba qirteen, arrintooda la ogaaday, waxaa lagu xukumay dil toogasho. marka xilliga la xukumaya waxa waaye 2013. laakiin ilaa maantadan aan kula hadlayo labadaas nin lama dilin, oo kaliya waxay ku xireen xabsi, bis xabsigaa lagu xiray. marka Jazaa'ir dhibka haystaa waxay tahay hor dadka markay soo qabtaan oo qof lagu xukumo dil, oo qofkan waxaa lagu xukumo dil toogasho, waa la xukumi ma aho. marka maxaa la rabaa in dilkaas lagu fuliyo. marka dilka ma fuliyaanba, qofka markii loo dil toogasho lagu xukumay way qabtaan, way xiraan, wuu iska xirnaana bis. xitaa madaxweynihii hore oo Buudayaaf la dhahayo, madaxweynahaas waa la dilay. qofkii dilay waa la soo qabtay, maxkamad ayaa la soo saaray, waxaa lagu xukumay dil. laakiin ilaa hadda lama dilin, waa la qabtay, waa la iska xiray bis. marka Jazaa'ir dhibkaasta waxay tahay qofka haddii ay dil toogasho ku xukumaan maba dilaan, way xukumayaan, laakiin xukunka ma lagu fuliyo, waa la qabtaa oo waxaa la geliyaa xabsi. macnaha waxay ka doorbideen in ay xabsi nihaa'i, macnaha oo ilaa uu ka dhimanayo xabsi uu ku jiro qofka in la geliyo. marka arrintaastaa waxaa ka dambeeyo niman oo ku jira dowladda oo mas-uuliyiin ah, in qofka markii dil iyo wax lagu xukumo in aan la dilin oo xabsiga la geliyo, oo xabsiga noloshiisa ku dhammaysto. marka ma oga sheekadan waxay ka wadaan dadka qaar dowladda maa ka dambeeya in dembiyadan la gal sidaan, oo in ilmaha la afduubto iyo waxyaabahaas, mise barnaamij kala jiro. sababtoo qofka haddii la xukumo waxaa la rabaa ma wixii lagu xukumay in lagu qaado, laakiin saas ma jirinbo. adiga Jazaa'ir hadda ma ogi in arrinta ay ka degtay in kale, laakiin xilliga waxaa ka cadsanaa arrinta oo ilmaha in la afduubto. al-uurti markii arrintii fashilantay, dadkii wixii la ogaaday oo dil lagu xukumayna cid dishay ma lahan. ilaa ay maantadan kula hadlayana dadkaas waa waxay ku jiraan xabsi. marka inay dhinteen in kale ma aqaan, laakiin wax dilay mana fiiri. waxaa ku dhahay madaxweynihii hore qofka dilay ayaa weli nool oo aan la dilin oo xabsi ku jiro. marka qof caadi loo dilay ama ilmo yar oo la afduubtay waxay kasoo qaadayaan ma lahan. marka Jazaa'irna wadan muslim waaye, marka ma aqaan wax ka qaldan iyo sidee wax u wadaan. marka arrintii afduubka Jazaa'ir iyo ilmihii la afduubana horta sheekada meesha kusoo gabagabowday, sababtoo dadkii haddii la qabtay oo wixii fashil ay noqotay bis waay. inkastoo laga yaabo in ay iska jiraan afduub yar iyo waxyaabahaas, laakiin middan waxay ahayd mid joogto ah oo dhacdo caadi ahayd, maalin walba cunug yar afduubana iska ahayd. marka saaxiibayaal, waa sheekadeena sheeko iska yar oo kooban ahayd. waxaan ugu talagalay inaad ka nasataan sheekooyinkan daqiiqadaha dhaadheer 20-25 daqiiqo inaad ka nasataan, oo xoogaha maanta
sheekadana idin noqoto sheeko yar oo iska baashaal oo aad madaxa ku degsataan. inkastoo iyadana sheeko saas oo cabsi badan ma ahayn caawo, laakiin iyadana afduub iyo dil wixii uu ku jiray, laakiin sheekooyin kale xoogaa waxaas leeyahay way ka jaban tahay oo cabsi badan iyo buuq badan ma lahan. marka saaxiibayaal waryaan idinku daalin, sheekadeena ama muuqaalkeena caawa inaga inta aynu muuqaalka dib u kulmi doono. amaana alle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.